السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتي ولا لكم على channelka Soomaali noo soo dhawaada waxaan marinay ama noo soo koriskeena ITFL gaaraan chapterkiisa xaq gaaraan qaybta saddexaad bilowna fidiga koreeyay waxaan storage device la garanay waa qalabyada ka mas'uulka ah computerka oo qabta shaqada kaydka waxa la kaydinaya kala duwanaadaan horaan soo sheegnay haddaba maanta waxaan imanaa halbeegyada iyo halbeegyada la adeegsado si xog loo kaydiyo tusaale haddii marka nolosheena caadiga aan joogno haddii guri la matirinayo ya haddii fooq la matirinayo ya haddii beer la qodayo isku cabir ma qaataan haddii guri la qodayo laga yaabo in la yiraahdo talaabo kale loo adeegsado kale haddii beer oo kale laga yaabo gaari la dhaxmariyo oo tirinayo matiradii haddii fooq oo mala socda marka shay walbaaba halbeeg gooni u leeyahay marka computerkaaga la joogo xogaha waxa lagu kaydiyo halbeegyada la adeegsado waxa kamid ah aan ku celiyo computer storage unit halbeegyada kaydka ee computer halbeegyada kaydka ee computerka waxa kamid ah marka computerka dhex joogtid mareysina khaasan halbeegyada kaydka waxaad maqlaysaa halbeegyadan kuwa ugu caansan waxa kamid ah bit waxa kale kamid ah byte waxa kale kamid ah kilobyte waxa kale kamid ah megabyte waxa kale kamid ah gigabyte terabyte petabyte exabyte zettabyte yottabyte prontobyte halbeegyadaasuna waa halbeegyada ugu caansan badana intaan Soomaaliya joogno kuwa ugu caansan ilaa ya tera ayaan naqaana ilaa iyo intaas aan naqaana laakiin caalamka kale inta kale way soo gaadhay insha Allah waan la rajeenaa in halkeena ay soo gaadhay laga adeegsanayo marka ilaa teeranta laga sareeyo dad xifdina waa ahlan wasahlan si loo xifdiya waxa laazim inaad xifdidid qodobka u fiirso horta halka bit maxaa loo soo gaabiyo waa bit iyada lama soo gaabiyo halka bit waxa uu dhigmaa 0 iyo 1 buu dhigmaa oo tusaale haddaan ku qoro 0 haddaan qoro 0 haddaan qoro aan kula computerka saara wordkayga soo fur markaan wordkayga soo furay aan si kala u dhigo markaan wordkayga soo furo ayaan wax ku qoray 0 gaasi imsa ayuu dhigmaa 0 gaasi ayaan si kala u dhigo imaka bitka aka waxaan siidari dhimale bitku wuxuu dhigmaa 0 iyo 1 buu dhigmaa 0 iyo 1 oo waa sababta loo yiraahdo computerkaaga 0 iyo 1 oo kaliya fahma haddaba bitkaaga waxa ka weyn byte ba ka weyn bytekaaga wuxuu dhigmaa oo loo soo gabayado waa byte ma weeyaan waxa loo soo waxa u dhigantaa 8 bit buu dhigantaa waxa u dhigantaa 8 bit tusaale markaan imka qoro waxaan qoray Ahmed baan qoray Ahmed ayaan qoray okay Ahmed ayaan qoray waxa leenahay kaas waa misa kaas waa bit ka fiirso waxa leenahay waa 0 gaas waa waxaan jeedaa eedaasi aan baabiyo waa labadaasi qoraan dhawaaqaha baad isku dhig markaan imka qoro Ahmed markaan qoro Ahmed imsa xuruuf koobay shan xuruuf waxa leenahay eedaasi waa hal byte taasna waa hal byte taasna waa hal byte daasina waa hal byte daasina waa hal byte meel socota halkii byte-na 8 byte buu dhigmaysa haddaba haddii meesha inoo yaalaan 5 byte hadday noo yaalaan 5 byte bay noo yaalaan 5 byte bay noo yaalaan imsa bit baa uga dhigmaysa 5 state ku dhufo waa 4 meel waxaan rajeynayaa fiidiyoga soo socda inaanu ku eegno sida la isku bedelo inaanu fiidiyoga ku xiga aan practical ku bixino sida darteed halkii letterba ama halkii numberba wuxuu dhigmaa hal byte oo koosa hal byte ayuu dhigmaa halkii byte-na muxuu dhigmaa 8 byte silafan haye aan hore si socono halka kilobyte oo kb loo soo gaabiyo 124 byte ayuu dhigmaa halka megabyte waxa uu dhigmaa 124 kilobyte meel soo halka gigabyte oo gb loo soo gaabiyo 124 megabyte buu dhigmaa halka terabyte wuxuu dhigmaa 124 gigabyte halka petabyte wuxuu dhigmaa 124 terabyte halka exabyte waxa uu dhigmaa 124 petabyte halka zettabyte waxa uu dhigmaa 124 zettabyte halka yottabyte waxa uu dhigmaa 124 zettabyte halka prontobyte waxa uu dhigmaa 124 yottabyte tusaale imka hadaan practical ka bixino iska bedelkeena fiidiyoga noo socdaan ka dhigi doon laakiin imka hadaanu isla eegno goorma storage unit-yadan ama halbeegyada la adeegsado tusaale hadaan imka soo kiciyo file explorer-kayga aan isla eegno halka balileeg aan tago iyaka file ligu jiraan okay halka ba file ligu jiraan bal file-ka ay ku qoran tahay Arabic file-ka ay ku qoran tahay maxay Arabic ay ku qoran tahay u fiirso muxuu yiri
sizekiisa halkaa u fiirso smart halkaa maxaa ku qoran hoos soo deg halkaa waxaa noogu qoran failkeena la ila carabiga inuu sizekiisu yahay 224 kilobyte kilobyte wanaga kilobyte halkaa ugu soo dhiganay de inaka kilobyte noogu qornay waka nala socota marka computerkaaga xogta kaydinaya halbeegyadan buu adeegsanaya tusaale wuxuu leeyahay failka ku qorata macaani kalimaat imtixaanaati 2022 waa 121 kilobyte nala socota haddaan imika isleenahay videoga soo socdaan isku bedelinaa kasii hordegdegimino bal fail kalaan qabano waxyaalaha qaar yaro culus ma raba okay hoosaan soo degno waxaan tagi doonaa pictures kana tagi mayno downloads kan tagno ka screen recorder ka baan tagno barnaamijka la screen recorder ka 461 kilobyte barnaamijyo culus computerka kale ku jiraan ay kan ugu jiraan marka halka waxaan ku garabaranay halbeegyada kaydka ee computerkaagu adeegsanay kuwaas ugu caansan videoga soo socda insha Allah waxaan ku baran doonaa sidee adigoo haysta 5 kilobyte si loogu bedelaa bit adoo geega haysta si loogu bedelaa bit adoo zeta beta ila insha Allah tusaale noocaas videoga soo socda ku baran doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.